go'aanka dawladda Spain ay qaadatay wali xitaa ma aysan qaadan qaar ka mid ah dawladaha Islaamka kaliya waxa qaatay dalka Turkiga. Spain ra'iisul wasaaraha ayaa maanta warbaahinta la hadlay wuxuu yiri laga bilaabo maanta markab calanka Israa'iil uu ka dulbabanayo oo shidaal sida markab iska caadi ah oo shidaal Israa'iil u sida mid hub u sida diyaarad caadi ah oo hub sida Israa'iilna ku wajahan intaba ma soo mari karayaan gudaha dalka Spain. sidoo kale waxa uu yiri warshadihii arrimaha hubka ka shaqeynayay ee Israa'iil la macaamili jiray wixii hadda ka bilowda ma qaadan karayaan go'aankaasi oo kale waana mamnuuc. go'aankan waxa hore u qaatay dalka Turkiga oo dhanka hawada iyo badaba ka mamnuucay Israa'iil maraakiibteeda iyo diyaaradaheedaba haday noqon lahayn kuwa rayidka iyo kuwa ciidanka. sidoo kale Turkiga wuxuu joojiyay xiriirkii ganacsi ee uu la lahaa Israa'iil. Spain maanta go'aankaasi oo kale ay qaadatay waa dalkii ugu horeeyay oo qaaradda Yurub ra'iisul wasaaraha dawladda Spain Pedro Sanchez ayaa go'aankanina ku dhawaaqay maanta. wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil uu ka daba hadlay wuxuu yiri Pedro Sanchez culayska gudaha ka haysta ayuu doonayaa inuu iska daboolo marka warbaahinta ayuu dhankeena u soo weecinaya. halka ra'iisul wasaaraha dawladda Spain uu yiri xasuuqa ka soconaya magaalada Gaza ma aan waxaan sii daawan karno go'aankan iyo go'aano kale oo ka adagna waan gaari doonaa waana Israa'iil in lagu ciqaabo arrintan. waxa kale oo qaatay go'aanka ah in wadanka Israa'iiliga ah marka uu ka dagayo Spain la kontrolo lana ogaado inuu ciidanka kamid aha iyo in kale hadii xasuuq uu soo geystana la soo celiyo dibna loogu celiyo ama ciidankii xasuuq geystay kamid aha in dib loogu celiyo gudaha Israa'iil. 55 dawladood oo Islaam ah go'aanadani oo kale wali ma aysan qaadan laakiin maalmihii ugu dambeeyay waxaad moodaa inay abaabul sameynayaan isbahaysi sameynayaan ma go'aan culus ay soo wadaan waan arki doonaa waxyaabaha go'aanka dawladda Spain ay qaadatay wali xitaa ma aysan qaadan qaar ka mid ah dawladaha Islaamka kaliya waxa qaatay dalka Turkiga. Spain ra'iisul wasaaraha ayaa maanta warbaahinta la hadlay wuxuu yiri laga bilaabo maanta markab calanka Israa'iil uu ka dulbabanayo oo shidaal sida markab iska caadi ah oo shidaal Israa'iil u sida mid hub u sida diyaarad caadi ah oo hub sida Israa'iilna ku wajahan intaba ma soo mari karayaan gudaha dalka Spain. sidoo kale waxa uu yiri warshadihii arrimaha hubka ka shaqeynayay ee Israa'iil la macaamili jiray wixii hadda ka bilowda ma qaadan karayaan go'aankaasi oo kale waana mamnuuc. go'aankan waxa hore u qaatay dalka Turkiga oo dhanka hawada iyo badaba ka mamnuucay Israa'iil maraakiibteeda iyo diyaaradaheedaba haday noqon lahayn kuwa rayidka iyo kuwa ciidanka. sidoo kale Turkiga wuxuu joojiyay xiriirkii ganacsi ee uu la lahaa Israa'iil. Spain maanta go'aankaasi oo kale ay qaadatay waa dalkii ugu horeeyay oo qaaradda Yurub ra'iisul wasaaraha dawladda Spain Pedro Sanchez ayaa go'aankanina ku dhawaaqay maanta. wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil uu ka daba hadlay wuxuu yiri Pedro Sanchez culayska gudaha ka haysta ayuu doonayaa inuu iska daboolo marka warbaahinta ayuu dhankeena u soo weecinaya. halka ra'iisul wasaaraha dawladda Spain uu yiri xasuuqa ka soconaya magaalada Gaza ma aan waxaan sii daawan karno go'aankan iyo go'aano kale oo ka adagna waan gaari doonaa waana Israa'iil in lagu ciqaabo arrintan. waxa kale oo qaatay go'aanka ah in wadanka Israa'iiliga ah marka uu ka dagayo Spain la kontrolo lana ogaado inuu ciidanka kamid aha iyo in kale hadii xasuuq uu soo geystana la soo celiyo dibna loogu celiyo ama ciidankii xasuuq geystay kamid aha in dib loogu celiyo gudaha Israa'iil. 55 dawladood oo Islaam ah go'aanadani oo kale wali ma aysan qaadan laakiin maalmihii ugu dambeeyay waxaad moodaa inay abaabul sameynayaan isbahaysi sameynayaan ma go'aan culus ay soo wadaan waan arki doonaa waxyaabaha